shirkaasna wuxuu ahaa shir iskaashi ah oo labada dowladood kii ugu horreeyay oo la qabto. Waxaa wafdiga dowladda Norway oo halkan ugu soo booqday hogaaminaysay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca iskaashiga oo ay la socdeen safiirka danjiraha qaabilsan Soomaaliya iyo ergeyga gaarka ah iyo wafdi kale oo ka socda safaaradda. dowladda Soomaaliya waxaa ku matalaysay wasaaradda arrimaha dibadda, xafiiska ra'iisul wasaaraha, wasaaradda batroolka iyo macdanta, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. hay'adahaas oo dhan waxaa laga wada hadlayay sidii dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway isu kaashan lahaayeen. dhinaca maalgashiga ayaan ka wada hadalnay. waxaan ka wada hadalnay mashaariicda badan oo Norway ay ka fuliso Soomaaliya. waxaa kaloo ka wada hadalnay Soomaaliya horumarka ballaaran ay ka samaysay dhinaca siyaasadda loo dhan yahay, dhinaca horumarinta dhaqaalaha, meesha uu marayo dardargelinta dayn cafiska. waxyaalahaas oo dhan aad ayay u soo dhaweeyeen. waxay kale soo dhaweeyeen guushii uu kala kulmay ra'iisul wasaaraha booqashadii uu ku tegay Washington iyo markuu la kulmay hay'adaha maaliyadda qaabilsan ee hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka iyo soo dhaweyntii uu la kulmay. waxaa kaloo iska wareysanay meesha ay marayso horumarada kale oo dastuurka, doorashada soo socota, axsaabta siyaasadda. waxaan iska wareysanay mashaariicda kale horumarinta, maalgashiga muxuu ahay oo dhan ee Soomaaliya ay u baahan tahay iyo sida la kaashan lahaa xagga arrimaha socdaalka. waxaan uga mahadcelinay dowladda Norway inay ahayd dowladda ugu horreysay oo aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga iyo baasaboorka shaqada. arrimahaas oo dhan sidii la kaashan lahaa wax weyn ayay u horseeday. iyo waxaan kaloo aad ugu celinay in Soomaaliya u baahan tahay maalgashi ballaaran oo aysan u baahnayn wax gacanta ama yabaho la siiyo. taasna ay tahay in Soomaaliya la maalgeliyo si mustaqbalka uu dhismo, shaqo abuurna loogu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. shirkan waa sidaan sheegay waa shirka ugu horreeyay oo la qabsano dowlad reer galbeed oo sidaas oo kale ah. waana shir iskaashi oo inta la is fariistay si toos oo fiican loo wada sharxay mashaariicda iyo waxyaalaha loo baahan yahay la iska gaashan karo. waxaa jira meelo badan oo Norway anaga naga caawin karto sida technology-ga batroolka oo kale, sida waxbarashada, sida horumarinta xuquuqul insaanka. waxyaalahaas oo dhan waa wax ay Norway ay khibrad u leedahay oo naga caawin karto. Norway waxay kaloo ay aad ugu furfuran tahay in Soomaaliya ay wax la qabsato. taasna waa wax weyn in Soomaaliya maanta loo soo jeesto la arko horumarka ay sameynayso oo dowladda danaynaysa inay wax la qabsato. waxyaalaha aan kala hadalay ayaa ka mid tahay in maadaama dhaqaalaha Soomaaliya la siiyo inta badan lasoo mariyo hay'adaha caalami ah in hadda la joogo waqtiga Soomaaliya si toos ah loo maalgashan lahaa ama loo siin lahaa kaalmo haddii la siiyo. taasna waxay ku caddahay horumarinta dhaqaalaha ee dowladda ay samaysay iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo soo hagaagaya iyo sida beesha caalamka hadda ay ugu kalsoonaatay in Soomaaliya ay ka gudbi doonto marxaladdan hadda ay ku jirto Abdullaahi Raad.